halkan waa Bahda TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah hal arrin oo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaga fiican yahay madaxweynihii isaga ku horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ku soo wajahan Muqdisho iyagoo wata shuruudo kale madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle oo sheegay in Soomaaliya iyo Jabuuti cid kala bixin karta aysan jirin koox burcad ah xilliyada habeenkii dhac ka geystay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir oo qaar ka mid ah la qabtay qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan isku soo noqod habboon daawadayaal kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan fadlan haddii markasta ay ku soo gaaraan wararka Bahda TV subscribe saaro oo gambaleelka furo aynu ku bilownay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu ku sugan filla Soomaaliya muddo hal bil ah ayaana waxaan jirin wax heshiis doorasho ah taasi oo ka dhigan arrin ugub ku ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya shalay oo ay ku beegneed 8 bisha Maarso waxaa dhamaaday bil kaamil ah maadaama muddaxileedkiisu uu ku ekaa 8 February ee bishii aynu ka soo gudubnay welina ma jirto wax heshiis ah loo wada dhan yahay oo laga gaaray arrimaha doorashooyinka tan iyo markii Soomaaliya ay ka baxday dawladii ku meel gaarka ahayd sanadkii 2012 ma dhicin in madaxweyne uu iska fadhiyo xafiiska iyadoo muddaxileedkiisu uu dhamaaday haatanna aanan heshiis lagu ahayn hanaanka doorashooyinka Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii 8aad kana horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu arrimaha doorashooyinka heshiis ka gaaray iyadoo muddaxileedkiisu uusan dhamaanin iyadoo taasi ay jirto haddana su'aalo isweydiinta leh ayaa waxa ay tahay rajam laga qabaa in heshiis laga gaaro doorashooyinka oo la qabto iyadoo lagu qanacsan yahay khilaaf badan ayaa ku hareeraysan heshiiska doorashooyinka waxa ugu weyn ayaana waxa ay tahay inaan la dhaqan galin heshiiskii 17 Sebtembar lagu gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kale meelmarinta isfahamkii ay gaareen guddiga ku shiray Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mucaaradka ayaa waxay doonayaan in heshiiska laga qayb galiyo walina la isku raacin arrintaasi waxaase jirta tabashooyin badan oo ay ka mid tahay arrinta gobolka Gedo xildhibaanada gobolada waqooyi iyo sharci la'aanta madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weli ku fadhiyo filla Soomaaliya arrinta kale ee ku hoos jirta waxyaabaha ku xeeran doorashada ayaana waxaa ka mid ah in shaki laga qabo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo la aaminsan yahay inay siyaasadda soo dhex galeen taasina ay walaac badan ku abuurtay mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba Farmaajo ayaa waxa aqalka dalka looga taliyo oo ku jira muddo bil ah isagoo aanan haysan wax sharci ah welina lagama heshiinin arrimaha doorashooyinka sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee xilgaarsiinta uma muuqdo mid qaadan kara kaalintiisa hirgelineed waxyaabaha horyaalla ee ah inuu dalka ka soo saaro marxaladda kala guurka ah inkastoo madaxdii ka horreysay Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ee madaxtooyada joogeen bilo kadib markii waqtigoodu dhamaaday haddana waxaa jirta inuu jiro heshiis doorasho dib u dhacan uu ku yimid hab farsamo ha yeeshee Farmaajo waxa uu kaga duwan yahay in xukunka uu sii hayo iyadoo aanay jirin heshiis laga gaaro doorasho umana muuqdo in madaxweynuhu uu diyaar u yahay madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa waxay ku soo wajahan yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyagoo wata shuruudo kale madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa la sheegay in Muqdisho imaan doonaan inta lagu guda jiro toddobaadkan waxa ayna wataan sida wararku ay sheegayaan shuruudo cusub oo ay la imaan doonaan shirka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay doonaysaa in shirkaas lagu soo koobo xaflad ay madaxdu ku kala saxiixanayaan qodobada xalka looga gaaray khilaafkii doorashooyinka iyo shirkii guddiga farsamo ku metelayay dhinacyada kaas oo bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada gobolka Banaadir oo shir ugu furmo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kaas oo qabsoomidiisu ay dadaal badan ku bixinayaan wakiilada beesha caalamka gaar ahaan safiirka Mareykanka iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya sida ila xogogaal ay sheegayaan shirkan ayaa waxaa la asteeyay inuu ka dhaco teendhada 4 sano ka hor madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu doortay ee Afisyooni oo ammaankeeda ay gacanta ku hayaan ciidamada AMISOM waxaana taasi loo yeelayaa fulinta shuruudda Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo dalbaday in shirka lagu qabto goob ammaankeeda la isku aamini karo hayeeshee xogo la helayo ayaa waxay sheegayaan in heshiiskii Baydhabo kadib Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni ay la yimaadeen 3 shuruudood oo cusub kuwaas oo ay qorsheynayaan inay la yimaadaan shirka Muqdisho ka furmaya qodobadaas ayaana waxa ay kala yihiin 1 in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixo warqadda xilgaarsiinta 2 in wixii sharciyad ah ee la saxiixay 27 bishii December kadib xilligaas uu dhamaaday muddaxileedkii baarlamaanka Soomaaliya laga laabto 3 in amniga doorashooyinka
laga wada hadlo kadib wixii muqdisho ka dhacay 19 Febraayo ee bishii aynu kasoo talabnay. dhinaca kale madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hadda waxay safar ugu maqan yihiin dalka Turkiga, waxaana la sheegay in ugu dambeyn dalka ay dib ugu soo laaban doonaan maalinta berrito ee Arbacada ah ee soo socota si ay kaga qayb noqdaan shirka la filayo in Muqdisho uu ku dhex maro madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxaa Muqdisho kaliya ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle, waxaana la filayaa in aakhirka toddobaadkan ay Muqdisho soo gaaraan madaxweynayaasha maamulada Jubbaland, Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo midka kale ee dowlad goboleedka Galmudug ee Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Deni iyo Axmed Madoobe ayaa ku adkaystay in filla Soomaaliya aysan tagin iyagoo farmaajo uusan haysan wax sharciyad ah. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geyle ayaa sheegay in Soomaaliya iyo dalka Djibouti cid kale dhex geli kartaa aysan jirin. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geyle ayaa ka hadlay xiisadda Soomaaliya iyo Kenya, isagoo markii ugu horeysay ka jawaabay dhaleecayn uga timid dhinaca xukuumadda federaalka Soomaaliya. dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay waxaa mar kale cirka isku sii shareertay xiisaddii u dhaxaysay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay dalka deriska la ah ee Kenya ku eedeysay in faragelin ay ku hayso arrimaha gaarka ah ee dowladda Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta bishii December waxay isku arkeen shirkii IGAD ee ka dhacay dalka Djibouti, inkastoo ay weeliyeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geyle. Djibouti ayaa xilligaasi loo xil saaray in dadaal ay ku sameyso sidii loo dejin lahaa xiisadda heerka sare joogta ee labada dal, isla markaana waxay Djibouti sameysay guddi xaqiiqo raadin ah kaas oo baara tabashooyinka ee Soomaaliya ka qabtay dowladda Kenya. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geyle ayaana markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xaaladda dhabta ah ee Soomaaliya iyo Kenya. Ismaaciil Cumar Geyle ayaa waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la hagaajiyo xiriirka u dhexeeya Muqdisho iyo xukuumadda Nairobi oo ah caasimadda dalka Kenya. waxa uu intaas ku daray in labada wadan ay deris yihiin isla markaana aysan sinna u kala maarmin. madaxweynaha dalka Djibouti oo sharaxay sababtii dowladda federaalka Soomaaliya ugu jawaabi waayay markii ay ka carootay sida Djibouti ay u wajahday khilaafka dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo dalka Djibouti cid kale dhex geli kartaa oo aysan jirin, isla markaana hawshan ay timid kadib dalab ka yimid madaxweynaha madaxleedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo shirkii IGAD ee dalka Djibouti ka dhacay ku soo bandhigay xogo dheeraad ah. koox burcad ah oo xilliyada habeenkii dhac ka geysan jirtay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir xaafado badan oo ka tirsan ayaa qayb ka mid ah la qabtay. ciidamada ammaanka ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir rag hubeysan oo burcad ah ayaa waxa israsaasayn kooban ay ku dhex martay xaafad ka tirsan degmadaas, waxaana ka soo baxaya faahfaahin dheeraad ah. dad ku sugan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxay ku soo waramayaan in markii hore ragga burcad ah ee hubeysan bastoolad ay dhac ugu geysanayeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan xaafadda Horseed ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ay ciidamadu ka war heleen, isla markaana halkaasi ay ka dhacday israsaasayn kooban. intaasi kadib howlgal lagu baadigoobay raggaas ayaa waxaa sameeyay ciidamada amniga, waxaana la sheegay in ciidamadu iyo ragga burcadda ah oo tiro ahaan gaarayay ilaa 4 ruux oo dhex martay israsaasayn kooban, iyadoo ugu dambeyntii ciidamadu ay suura gashay in gacanta ay ku dhigaan 2 ka mid ah raggii dhaca ka geysanayay ee ciidamada la diriray, waxaana lagu xiray saldhigga degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. degmada Yaaqshiid ayaa waxaa xilliyadii habeenkii dadka shacabka ah ee ku nool waxa ay qaati ka taagan yihiin kooxo burcad ah oo dhac ka geysta xaafadaha degmada, waxaana sidoo kale dadka dhaca geysta ku jira rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska. waad ku mahadsantihiin daawashada warka. haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato subscribe noo saar oo like noo saar, asxaabtaadana u share gareey. mahadsanidin.